إنا لله وإنا إليه راجعون waxaan dhammaan shacabka Soomaaliyeed gaar ahaan qoyskii eheladii caruurtii iyo qaraabadii uu ka geeriyooday Allah u naxariistay madaxweyne Cali Mahdi Maxamed uga tacsiyeynaya geeridii naxdinta iyo tiiraanyada lahayd ee ku timid dhammaan ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan qoyskiisa madaxweyne Cali Mahdi Allah u naxariistay waxa uu ahaa madaxweyne u soo shaqeeyay ummadda Soomaaliyeed waqti ay xaaladdu ahayd xaalad aad u adag waxa uu madaxweynuhu ku soo shaqeeyay duruuf adag oo ka duwan tan maanta aan ku noolnahay weligiis madaxweynuhu waxa uu ahaa nin Soomaaliyeed oo u adeegay ummadda Soomaaliyeed xilliyadii dambana iyadoo dalkani uu ku sugan yahay xaalad adag Allah u naxariistay madaxweynuhu wuxuu naftiisa iyo maalkiisa u hubeeyay shacabka Soomaaliyeed waxa uu qayb ka ahaa ganacsiga magaalada madaxweyne Cali Mahdi Allah u naxariistay waxa uu ahaa oday Soomaaliyeed oo markii xaaladda dalku ay qalqiqashaba loo soo laabtay isaga oo la weydiiyo tale iyo tusaale waxa uu ahaa iftiin kamid ah tiirarka ay ku taagan tahay dawladnimada iyo dadnimada Soomaaliyeed waxaan mar labaad u mahad celinayaa una tacsiyeynaya qoyska uu ka baxay oo u ogolaaday ummadda Soomaaliyeed inay la qaybsadaan aabahood walaalkood adeerkood awowhood oo ogolaaday inay ummadda Soomaaliyeed u adeegaan ummadda Soomaaliyeed meel walba ay joogaan waxaan ka codsanayaa inay u soo daceeyaan madaxweyne Cali Mahdi Maxamed waxaan Ilaahay uga baryayaa inuu qabrigiisa ka dhigo mid kamid ah beeraha jannada